السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفكرك يهود يقاب كل الله نغمو وحالو شيغا سيرة النبي نحريس إنه تقلي كركي ساعته إنه درس لها ني يهوديها يهودي جاني وها من قشنك كتورة قريق النبي هرتيسة نبي محمد نواو وقف كسمي فالكان وأنا وسب لجري ديبتيسة isagoo oran jiray nebi maxamed muuminka ku dhex jira dadka una sabra dhibtooda waxa uu ka ajir badan yahay muuminka aan dadka dhex gelin dhibtoodana u sabrin nebigu ma qariibsan jirin ficilka uu ninkan ku kacay balse rasuulku wuxuu waayay qashinkii la soo hordhigi jiray waxa uu ogaaday yahuudigu inuu xanuunsan yahay waxa uu aaday gurigii ninkii yahuudiga ahaa ninkii yahuudiga ayaa la yaabay nebiga waxa uuna weydiiyey sidee ku ogaatay jiradayda nebigu waxa uu jawaabay waan waayay qashinka ay soo hordhigi jiray markaas kadib ayuu weydiiyey miyaad ogay in anigu soo hordhigi jiray waxa uu jawaabay nebigu haa ma unagaa ninkii ilaa uu shahaadada qirtay halkaa waxaa kaaga muuqda in sabarku uu sifo weyn oo ajar badan lagu helay uu yahay 1400 oo sano kadib waxaa dib u soo laabatay dhacdadii nebiga iyo yahuudiga dhex madhay nin dhalinyaro ah oo muslim ah ayaa wuxuu jaamacad ka dhiganayay dalka Maraykanka waxaa daris lahaa ardaygaas arday kaloo yahuudi ahaa maalin walba oo ay is arkaan wiilka muslimka waxa uu salaami jiray wiilka yahuudiga ahaa kamana uusan qaadi jirin salaanta maalinkii dambe waxaa safray wiilkii yahuudiga ahaa waxaana albaabka gurigiisa ku batay joornaaladii loo keeni jiray subaxii wiilkii muslimka ahaa ayaa arkay joornaalada waxa uuna bilaabay inuu aruuriyo joornaaladii kuna kaydiyo qolkiisa maalmo kadib waxaa dib u soo laabtay wiilkii yahuudiga ahaa wiilkii muslimka ayaa u keenay joornaaladii uu hayay wuuna u dhiibay iyadoo joornaaladan waqtigoodii dhammaaday yacni xogta ku qoran baa ah xog laga soo gudbay wiilkii yahuudiga ayaa weydiiyey maxaa kugu kallifay inaad joornaaladan ii kaydiso waxa uu ugu jawaabay waxaan ka cabsaday inay ku dulbataan albaabkaaga hortiisa markaasna ay tuugadu ogaato in qolkaaga cidna aysan joogin sidaasna qolkaaga loo jabsado saaxiibkayow yahuudi baan ahaye kii gale ayaa u warceliyey anna muslim baan nahay yahuudiga ayaa la yaabay wiilkii muslimka ahaa wiilkii muslimka ayaa ku yidhi saaxiibkayow nebigeennu naxariisi nabadgelyo korkiisa ahaatee xaqa deris aad ayuu u dhowri jiray ilaa uba dhexli gaaray adiguna deriskayga baa tahay waxaad sheegayso ma diintaada ayuu ka yimid mise aduu kaa yimid kii muslimka ayaa u warceliyey diintayda ayuu ka yimid wiilka yahuudiga ayaa inta uu madaxiisa ruxay tegey maalin kale ayay kulmeen wayna is-salaameen wiilka yahuudiga ayaa weydiiyey inuu hayo qoraallo laga qoray islaamka oo af ingiriis ku turjuman wiilkii muslimka ayaa u dhiibay qoraalladii lagu qoray afka ingiriiska muddo kadib ayuu albaabkii wiilka muslimkaa soo garaacay waxa uuna doonayay inuu islaamo saaxiibkiis muslimka ayaa aad u ammaanay wuxuuna ku yidhi mar labaad soo akhrisoona fikir wuuna ka aqbalay wuxuuna mar labaad sameeyey cilmi baaris wuxuuna ku soo laabtay maalinkii labaad isagoo ay dhab ka tahay inuu islaamo ninkaas yahuudiga ahaa waxaa u joogtay xaas iyadana muddadaas wixii soo kordha ula wadaagi jiray waxayna go'aansadeen inay islaamaan waxayna noqdeen qoys muslim ah una ay sababta islaamidooda joornaal maalinla ah wuxuu awooday wiilka muslimka ah inuu ku tuuro joornaalada salada qashinka lagu rido ama uu iska daayo balse waa kudaysigana la amray inaan la imaano gaar ahaan xaqa jaarka muuqaalkeen intaanu ka egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh